أدبن حقيقة أي عن فرحة نوعتها إلى أن ما أنت السجون نمد تلا نجوا ذا حيس تلا سوكو سابسن سيدان عروتين وعاون لاين مرة بو إلى أن هذا الكبديو هذا الواكودالن وأنا جعلنا لكن ما أنت وحرمنا إن نكبدل لأنه سيدا أنسمين جرني وحل إلى هذا خير الكلام ما قل ودل هذا الكوحة فائدة سوتحيبة كان مهم دنا يدل على هذا الكتابا هي كوبنا برنامج كان أنا وبحنا تلوذاك بروجرام وحب باللامي جنوري 2015 هويوين باب باللامي هويوين كاسو دبكو تابتي waxaa markaa soo joongareeyay oo u soo bandhigeen rag inay kala qayb qaataan maraba hadda inaan dib ugu noqdo taariikh badanna aan ka sheekeeyo ujeedada ugu muhiimsan oo programkan uu yahay baan rabaa inaan idin sheego waxaa marka ugu horeysay ujeedadu tahay inaan transform ku sameeyno community-gan Lagangadis, I don't know what it's called in Marti of Somali. Lagangadis, Mr. of Somali Cafe Ambalaya. Transform in Ankusameno or Ugusameno, waha add no gubatay Wahalira Atau or problem reporting. In Intabadan anu is with Arseno, anu Kahalano, problem Kajira. problem كاسون قف حيسنين لبا حيسنين سد حيسنين community عميمي وطن كلي أنكو أكين مجال كلي أنكو أكين لقب باللعبة مانتا أنه مركا وحن قو أنصرني فديدين بهن ولت الماما إن بدن بن سوس عندنا سودو تنيني إن أنو هذا problem reporting وبدلنا solution oriented أفر وحيابود با برنامج كان أساس ونقول هاي أسد كان هان أنت برنامج كوجود قليل إن عدم ب ونوغش كيسا بروبلم كجرا وسنجرين قف شخصي أو بروبلم وهاي سنكره بروبلم كعام كأو كوميونيتي هايستو فلان وحبها نوغش كين إلا بشرط إن أتراعسه واحد حل واركته معناها from problem مسكحة بني آدم كن negativity نبو كنا مركز سو negativity لقاسي حلو emotion كهاي بوسين قنايا solution كيبا مركز وحو بور قنايا مركز from the time أد كفكرتو problem مسكحة هذا switch وقصة what could be the solution وعطسي meel kasta oo Soomaali joogtana waa ka cusayna arintaas markaad problem ka hadasho halka waxaad u aragto raaci qaybta kaaga aadan oo aad ka qeydan kartana raaci labada sharti waxaad hal u aragto iyo waxa kaaga aadan as shakhsi labadaas ba raaci waa kow inaad isweydiiso tiraahdo what is my contribution أنا وأهان محان كوكورين كرا وأساسك برنامج وكميدي وحاسد حية إن أنو الله يردنا يعرورتنا أو مستقبل كأ unified approach and strategy أنو قادن معناه وحن كوضع collective approach قبيل ما يقانن دين فهم كذا نواكو يري تذكر ماشان كل شيء أما كوكوري قبيلنا شقاكم له فهم كدين تنوا كل تل مركا وحلا كلا قوقبه أو قفنا وير هذا كي وفي عينه قف كلنا أو أرك إن مارتي وسنحل كسرنين ماشي كم جرت مركا unified approach and strategy وحا أفريه وأن عصنينا إن دعاء بدن
qof kastana usbuuci hadduusan ka badin karin saacad ka hor nus saac ka hor intuu awoodo 2 ragcadood oo qiyaamuleyl inuu u tukado sida dhalinyarada Soomaalida oo muslimiinta ah ilaahay sidoo u badbaadin lahaa without duco hada silaax mu'minka waa duco way afarta shay ba horta cusanaynaa waa ku soo celinay problem kasta oo ku muuqdo xal ka fikir iyo waxa kaaga aadan contribution ka adiga aad society ku leedahay iyo waxa aad qaban kartana ka fikir ujeedada iyo dhibka nahaysta waxa weeye unified approach strategy weeraan ka qaadano duca badan oo ilaahay aan barinana aan sameeyno afartaas horta waa codsiga naga waxaan kaloo codsanaynaa dadka stakeholders masaajid ha ahaado organization ha ahaado business ha ahaado community ha ahaado saddex su'aalood ina isweydiin saddexdaas su'aalood hal ba asaas u ah waa marka ugu horeysa inaan niraahno how do we preserve our culture language and religion war anaga haddaan ummad Soomaali nahay dhaqankeena iyo diinteena iyo luqadeena sideen 5 years from now 10 years from now how do we preserve sideen u ilaalin karnaa saddexdaas su'aalood su'aashaas markuu qofku isweydiiyo saddex su'aalood waa inuu ka jawaabo what shall we do bal hadalka u fiirsada waa inay crystal clear ay haataa what do we need to do war maxaan samayn karnaa waa in qof walba maskaxdiisa ay ku caddahay ilaada 1 2 3 4 aan samayn karnaa waa cool that's one question second question waxa weeye waxa aan samaynayno what are the benefits waa inaan qeexnaa benefits ka ama faa'iidada ku jirta waxa aan go'aansano inaan samayn karno waxa saddexeeya how do we do it saddexda question waxa laga rabaa every stakeholder masaajid ha ahaado meel kasta ha ku yaalo in saddexda su'aalood ka jawaabaan waxaana keenaya mujtamaceena wuxuu u badan yahay dhalinyaro masaajid kasta iyo meel kasta oo la isugu yimaado iyo community center dadka in loo shaqeeyo mudan waa majority-ga waa dhalinyarada way serviceda masaajidada laga bixiyo haddaanay ku dhalinyarada ku wajahnayn waxa way cilad baan haysata barnaamijka yaana ku dheeraan 4 qaybood baan u qaybinay 4 qaybood baan u qaybinay qof walba uu maskaxdiisa inta gali qayb waxbarasho in waxbarashada qaabkii dadka looga caawin lahaa aanu iska kaashano gacmahana iska qabsano from brab ila 2 alif ila university oo qaabab kala duwan u kala wajahayno waxbarashada markaan sheegayo tii diintana waa ku jirtaa tii maadigeed kaliya ma qayb waxbarasho ku aada dadka dhan ina 4 qaybood u qaybino qayb waxbarasho ku aada oo waalid iyo dad wax maartay offer gareynaya waqtigeeda offer gareynaya ka kooban qayb social issue-ga war sideen ijtimaaciga wax uga qaban lahayn dad jidkii la rabay daba maray waxay doonaan ha ku jiraan ama shiishaha cabaan ama daraag ha qaataan ama salaadii iyo masaajidkiiba ha ka leexdaan qof kasta oo jidkii la rabay daba maray social issue baan ku magacaawno waxa saddexeeya dad badan oo arda oo wax bartay oo si qaabkii shaqo loo heli lahaa amaba shaqo helitaankii labadaba uu ku adkaaday cilad kasta ha jirto cilad kasta ha sababto
waxaa afreeya sportska oo aan u isticmaalayno channel ahaan sidii aan caruurta recreational activity iyo sports loogu samayn lahaa si martay waqti loo geliyo oo looga ilaaliyo meelo kale oo ka duwan ay aadi lahaayeen barnaamijka afarta qaybood baan u qaybinay afarta qaybood waxaanu ku talagalnay waalid iyo walaal sheekh iyo caadi waxaad ku magacaawdaba in qolo walbo qaybta kaga aadan oo iska meesha roolkiisa meeshuu ku aadiyo iskaga uu ka raadsado waxaan jeclahay marka anugu hadal badan ma badinayo afartii qaybood oo hore oo codsiga naga ahayd Soomaali meel kasta oo joogtana aan ka codsanayno khaasatan dadka Melbourne ku nool afarta qaybood dad qayb walba warbixin yar ka bixin doona saddexda qaybood oo guddiga ka mid ah anigu ku dheeraan may hadalka qaybta la siiyay waa qaybta arrimaha ijtimaaciga ah qaybta arrimaha ijtimaaciga saddex qaybood baan u qaybinay horta dadka igala qayb qaadanaya khayr Allah siiyo gabdho soo dadaalay oo aha gabdhihii bilaabay mashruucan bilawgiisii siday ka mid tahay Nadiifo Nasro Sagal iyo gabadh la yiraahdo Khadra Umar waxaan kaloo u furan yahay mashruucan qof allaalay qofkii Soomaaliya oo raba inuu si voluntary uga qayb qaato programkan anagu aan wadno arrimaha ijtimaaciga muxuu ka kooban yahay dhibaatooyinka ku dhacay caruurta ka leexday jidkii caadiga ah ee nolosha taasna waxay ku tusaysaa waa caruurta isticmaalay ama ha noqoto maandooriyaal ama ha noqoto waxyaalo kale oo la mid ah intaysan caruur jidka ku soo dhicin problemku wuxuu ka yimid dhibaato kaga timid xagga tacliinta ilmihii diintooda iyo tacliintooda fiican tahay waa badbaadaan markuu cunugu ka soo haro jidkii waxa uu ku soo dhacaa jidkan qodxaha dhibaatada badan leh oo keenaya inay noloshiisa burburto waxaan u qaybinay saddex qaybood wax ka qabashada arintaas qaybta koowaad waa ilmaha ay dhibtu soo gaartay yaa caawin kara horta marka hore waxaa caawin karo mas'uuliyadda iska leh waa waalidku siduu ula dhaqmi lahaa caruurta waa qayb ka mid ah qaybteenan social issue ama arrimaha bulshada ah waxaana bixi doona casharro badan oo ku saabsan sideeba ilmaha ku dhashay wadankan oo aan aqoon dhaqankii Soomaaliya iyo sidkiina lagu soo koriyay iyo waalidkii dhalo halkan jooga la isku fahansiiya casharradaas waxaa bixin doonta nuura iyo gabdha kale oo la socda annaguna qayb baan ka nahay waa joogayna haddii Ilaahay idmo subxaanahu wa ta'ala tan saddexaad oo ku xigta waa qaybta ilmaha qaatay waxyaalaha maandooriyaasha cunugu hadduu maandooriyaha qaatay waa wax caan ah wadankan ka dhaca hadday ku dhacaan cunugii dhibaatadii yaa ugu dhow baran kara waalidku sidee buu cunugaas ula dhaqmi karaa sidee buu ugu sharxi karaa dhibaatada ku dhacday sidee buu ilaalin karaa cunuga kan in arqigiisa iyo sharaftiisa iyo sirtiisa isan u gudbin caruuraha kale kuwii guriga la joogay walaalihiisa ahaa sidee looga dhaadhacsiin karaa arrinta marka qaybtan waxaa nagala qayb qaadanaya dad professional register ah wadankan jooga laakiin condition adag baan nala ku xiray conditionka nala ku xiray waxay tahay inay ahaato aabbe iyo hooyo iyo cunugiis wada socda labada waalidkii caruurta u roon oo cunuga uu maqlayo ma qasab ma labadu inay ku wada xirnaadaan kala dambeyntu waxay ka bilaabataa guriga dad muslimaan ah diinta islaamka abtirsada aabaha iyo hooyada haday wada shaqeeyaan caruurta badbaadadoodana way imanaysaa meesha habaarka cayda waxunka sheega midna xal u noqon mayso xal waxay u noqonaysaa cunugan soo daaweyn u heli lahaa iyo kuwa soo haray oo guriga jooga si u heli lahaayeen ka hortag inay jidka ku dhicin marka afartaas qaybood baan u qaybinay qaybtii social issue ah waxaan sameynaynaa tababaro ku saabsan waalidku inuu fahmo waxaanu cunugiisa qaatay maxay yihiin hadduu qaato cunuga calaamadaha lagu garan karaa haddii cunugu stage buu kala leeyahay mid waxay tahay waa mid uu la dhuudhuunto qarsado mid waa mid uu nolosha ka dhacayo laamiga dhinaciisa fadhiyo midna waa mid uu criminal yahay u galayo xabsi u galayo marka afartaas qaybood aan soo sheegnay qayb walba daaweynteeda iyo wax ka qabadkeeda waa noo wada taallaa marka hore waxaa programka bilaaban doona in waalidka ay helaan training iyo tababar ku saabsan sida arinta ugu diyaar garoobi lahaayeen
tan labaad waxaan haynaa cunuga kan waddankan saad la socotaan mas-uuliyadda carruurta waxaa iskale waalidka uma dhaxaynayno waalidkii dadka daaweynaya laakiin annagu waxaan noqonaynaa pathwayga usii marayeen dad diyaarsan raba inay ilmahoodu jidkii sharafta kusoo noqdaan raba inay bartaan sida looga hortago inaysan dhibaatadaas ilmahoodu ku dhicin arrimahaas waaye arrimaha aan annagu diyaarinayno horta waxaan ku bilaabayaa tacsidii dadkii xamar ku dhammaaday waxaan rajaynayaa insha allah in ilaahay dembigooda dhaafo intii dhimatay intii noolna in ilaahay dhaawacooda u kaba ku dheeraan maayo waxbarashada waxaan kusoo koobayaa 3 qodob horta waxaan isku dayayaa definitionka waxa aan rabnay inaan sameyno inaan qeexo tan kale maxaan qabanaynaa maxaa la doonayaa in la qabto tan saddexaad talo wadaag maxay ku leedahay qorshe ah programka talo wadaag maxay qabanaysaa definitionka programka waxbarashada ee talo wadaag wuxuu yahay kor u qaadidda heerka waxbarashada carruurta Soomaalida ee Melbourne degan in kor loo qaado heerka waxbarashada carruurta Soomaalida marka cid walba inay fahantaan u maleynayaa marka programku wuxuu ku saleysan yahay kor u qaadidda waxbarashada heerka waxbarashada carruurta ee Soomaalida waxbarashada markaan leenahay sidoo walaalkay Ibrahim ba sheegay waxay isugu jirtaa mid diiniya iyo mid maadiga aslan naqinay tan diiniga waxaan xoog saareynaa haduu Ilaahay yiraahdo akhlaaqiyadka in ilmaha akhlaaqdooda in la dhiso oo ruuxiyadooda la dhiso ilmuhu haduu akhlaaq leeyahay inta badan ma xumaado marka waxbarashadu waxaad maleysaa in ay wax walba iyadu base u tahay marka hadii basiga waxbarashadu xumaado ayaa waxa imaanaya programyadan kale ee socialka iyo even shaqo la'aanta marka waan isla fahanay definitionka marka how sidee marka aan wax uga qabanaynaa waxa uga qabanaynaa first waxaan sameynaynaa parent advice continuous parent advice in tala joogto ah oo aan dhamaanin in parentiga la siiyo waa parentiga marka ay xiiseynaya ama doonaya in la siiyo u baahan advice-ka waxayna ku haboon tahay qoysaska hadda dhismay yaryar carruurta yaryar haysta ayay maxaan ku dhahaa aad ugu haboon tahay oo marka qodobkaas waa mid hadaad kilita uu waalidku barto dhowrka stage ee waxbarashada carruurta marto ama diini ahaato ama maadi ahaato intaas kilita ayaa baartiga anfacaysa in carruurtiisa wax taraan qodobka kale noogu jira waxay tahay working with community stakeholders in community wixii stakeholder sida amso kale to hadda halkan siiso kale sida community kale Soomaalida sida organisationada kale ka baxsan community-ga Soomaalida in la shaqeeyo oo wixii laga faa'iidi karayo laga faa'iido talo wadaag marka maxay tahay shaqadeeda talo wadaag marka shaqadeedu waxay noqonaysaa inay isku xidho parentigi u baahan in la caawiyo iyo dad volunteer oo sameysmin doona on bideeno inay wax ku kordhin karaan familkaas marka coordination baan u sameynaynaa inaan dhinacna aan u register gareeno dadkii volunteer-ka ahaa oo u bixinay mentors dhinacna inaan u register gareeno parentigi iyo family-gii doonaya inay ka faa'iideystaan service-kan qodobka labaad talo wadaag ay qabanayso waxa kamid ah seminaaro workshops kulano fara badan oo arrimahan carruurta ah iyo horumarintooda waxbarashadooda akhlaaqdooda lagaga hadli doono oo socon doona sanadka oo idil marna loo qaban doono dhalinyarada oo stage kala duwan leh grade 9 grade 8 grade 2 alif grade 11 saas kugu duwi doono oo siin doono iyo mid kale oo barbar socon doono waalidka mashruucu waxaan ugu talagalnay 1 year inuu socdo as a pilot project marka sanadka haddaan aragno in community ka faa'iideyna waan sii wadeena oo waan sii habeenayna wixii editing u baahan baan ku sameeynaa haddii aan aragno in wax laga bedelo ama la joojiyo noqotana markaas ayaan community-ga ku soo celin doonaa war insha Allah waxaan horta tacsi u dirayaa dadkii maaragtay wax ku yeeloobay magaalada Muqdisho ilaahay jannatul firdawsaha ka waraabiyo
wixii waxaa sameeyena ilaahay abaalkooda ha mariyo ilaahay jahannamaha ka waraabiyo marka taas waxa weeye arrin bay ahayd aad u xanuun badan oo ummadeenna saamaysay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inay noqoto tii ugu dambaysay marka dhibaato dhacdana waxa laga faa'iidaystaa khibrad baa laga helaa tanna waxay noqonaysaa insha Allah midaynu ku xoogaysano oo ku midowno bay noqonaysaa oo faa'iido badan baynu ka helaynaa ilaahay idankii dhibaatada ka dhacay inagu dhacday ka sokow midda kale barnaamijkan maanta hadda la isugu yimi aad iyo aad baan maaragtay ula socday muddo badan buu soo socday maanta waxa weeye maalintii midhaha la guraayay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu noqonno dadkii ka faa'iidaysta dadku haddaanu iman oo ka faa'iidaysan dee waxa la yidhi faraska waa la soo kaxeeyaa markuu biyo rabo laakiin biyaha ma cabsiin kartid adigu biyaha u keen borogramkii haddii la soo dhisay oo la soo sameeyey ummadda markaa laga rabaa inay timaado ka faa'iidaysato waa soo dhawaynaynaa ilaahay idankii wuxuu noqonayaa mid guulaysta waana loo baahnaa waqti loo baahnaa buuba yimi waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo mid successful oo socda oo continuous ah oo weligii jira baanu ilaahay ka rajaynaynaa ku hadlo oo qayb brief ka sheego ha noqoto arrimaha bulshada ama tacliinta ama shaqada qof walbaba waxaan diyaarinay in markuu barnaamijkan dhamaado oo qayb ka mid uu yahay dhamaad maan markuu qayb ka mid ah inay la soo xiriiraan qof walba wuxuu interested ku yahay service uu doonayo form baa yaala meeshan he can register itself inuu iska register qofkii oo halkan qof walba sida u jeedin waxa hor yaala form soo diyaarinay so they can take that forms fill the form and hadday tahay arrin bulsho hadday ku haysato hadday tahay arrin tacliinta ama hadday tahay arrin xagga shaqada ah so intaas yaraan ku daraya insha Allah hadda noo sii mashruuca intiisii badnayd waa laga soo hadlay toos waxaan u baarayaa marka qaybta aniga igu aadan Cabdullaahi ahaan sida aad la socotiinba bulshadeena magaaladan ku nool waxaa loo badan yahay dadku ugu horeeyay 90kii inay yimaadeen wixii ka horeeyayna aan qof iyo 2 iyo 3 ay naga joogeen 90kii intii ka dambeysay wadankani inuu recession galay in dad badan oo qowmiyadii naga horeeyay wadanka deganaayeen ay qaarkood shaqo la'aan noqdeen annaguna aan la koosanay markaasi wadankii oo shaqadiisii ay yar tahay dadkeenii yimid qaar shaqooyin raadinahay si ku saabsan markaasi takhasusay lahaayeen ama xirfaday lahaayeen intaba inaysan u suurtagelin wadanka dhibaatadii uu ku jiray kadib waxaa dhacday markaasi dadkeenii inay noloshoodii si ay u badbaadiyaan markaasi ay shaqo noocay tahay u raadsadaan dadkii professionals ka ahaa ama technical skills ka lahaa in markaasi dantoodu ay noqotay haddii aadan heli karin shaqadii aad takhasuska u lahayd maxaad heli kartaa oo qotolyoonkaada aad kusoo saaran kartaa waan iska warqabnaa communitygeena intaan magaalada ku joogno iyo shaqooyinka noogu badan dad badan oo jaamacada ka soo baxay xirfad gooniye leh oo aan ku shaqayn wixii ay jaamacadaha uga soo baxeen ama takhasuska ay lahaayeen intaba taasna markaasi aan u garaabahayo dhibaatadii lagu jiray la soo wada maray dadkay wada ogaayeen wadanka aan ku cusbayn oo aan markaasi helaynin qofkii wado uu ku heli karo shaqadii maadaama shaqooyinkii maantayta ay u bateen yaa taqaanaa oo meeshaasi aad kala xiriiri kartaa ama kambaniga ka shaqeeya ama shaqo noocaas haya oo ku siin kara markaasi adiga jidkii aad wax ku heli lahayd ama fursadii aad raadin lahayd xataa ku tilmaami lahaa waxaa kaleeto markaasi shaqooyinka meeshan lagu helaa sida aad ka warhaysiinba wax la yiraahdo networking communitygeena maadaama aan cusbayn dad badan oo xiriir u naga dhaxeeyay ama aan naqaanay ku dhex jiray markaas fields-kii shaqooyinka ahaa dadkeenana markaasi ay rabeen inay aadaan ama ay ka shaqeeyaan ma aysan jirin taasi marka waxay keentay mashruucaani markaan sameynaynay daraasaadkiisii inaan soo helno macluumaadkaasi mashruucu marka qaybta shaqada waxaan u kala qaadnay 3 qaybood qof professional oo ama jaamacad ka soo baxay ama teef ka soo baxay oo shaqo raadinaya markaasi shaqadii uu takhasusku ku ahaa ama cilmigeedii uu soo bartay inuu helo
ku jira laakiinse aan ahayn iyo markaas waddadii uu u mari lahaa qof farsamo yaqaan ah oo technical skills soo bartay TFF-ka ama college-ka wax la yiraahdo ka soo baxay asagana sidoo kale dhibaatada mid lamid oo kale ay hayso iyo qof markaasi xoogsade ah wax khibrad ah ama skills aan lahayn shaqooyinkii xoogsiga laftirkeeda markaasi jidkii uu u mari lahaa iyo sidii uu u heli lahaa intaba aan ahayn mashruucan marka tala wadaag muxuu ka caawin karaa dadkeena ama community-geena uu u qaban karaa shaqooyinka raadinaya waxaan markaa isla garanay mashruuca in uu 3 qaybood community-ga uu ka caawin karo si ay markaasi shaqadooda ku helaan kow marka ugu horeyso horta qofkii shaqo la'aan ah inuu isdiiwaan geliyo oo community ku jira rag dumar dhalinyaro dadka jaamacadaha ka soo baxay intaba inay isdiiwaan galiyaan number 1 numberka labaad waxaan kaleeto ugu talagalnay in sanadkiiba dhowr jeer aan qabano seminaaro ku saabsan siday shaqada ku heli lahaayeen shaqada markaa raadinaysa maxaa u baahan tahay qofku wuxuu u baahan yahay resume inuu qorto dadka waxaa laga caawinayaa marka resumeyadooda inay update ka dhigaan oo shaqada uu markaasi dalbanahayo waxa looga baahan yahay in resumegiisa ay ka muuqato haddaysan ka muuqan oo aad tiraahdo halkaasaan qualification kaasaan haystaa shaqadaasaan u baahanahay resumeygaadana uusan update ahayn isma waafaqayaan marka resume writing skills in aan markaasi ka caawino number 2 interview skills resumegaada markaad dalbatid oo aad shirkadii ama meeshii hay-adii aad rabtay aad u dirtid waxaa laga yaabaa in short listing lagu sameeyo oo 4-5 qof ayay markaasi ka soo qaadanayaan dadkii wax u soo qortay interview face to face ama telephone mid ku doonaba ha ahaadee ayaa la mari doonaa dadku markaasi in interview skills la baro ku saabsan markaas shaqadii habkii uu wajihi lahaa iyo su-aalihii la weydiinahayay siduu uga jawaabi lahaa intaba taas waxaa noo sii dheer markaasi networking siday u samayn lahaayeen marka dadka waa run dad badan oo mujtamaceena markaan fiirino ku dhex jira suuqa shaqooyinka way yar yihiin suuqii shaqooyinka marka sidii aad u heli lahayd shaqooyinkana maanta waddankan inaa ka wareysin maqaan waxa advertisement-ga lagu sameeyo ama journaalada ha aadaan ama internet-ka ha aado lagu soo daayo oo shaqooyinka la xayeysiinayo boqolkiiba waa 20 baa la yiraahdaa 80 kaleeto waa qarsoon yihiin oo hoos bay ku jiraan si hoosaa la isu siiyaa aqoon baa la isu siiyaa anoo ku aqaano adoo meel ka shaqeynaa waxaan ku leeyahay war shaqa meesheeda ka banaana oo shaqadaad hay sidoo kaleeto ma u baahan tahay kaale halkan imo dhabarka taabasho saa u naqaan Soomaaliya haddaan nahay intii oo dhan baa jirta dadka markaasi in aan ka dhaadhicino networking in la sameeyo forumska maxaan ku yiraahdaa hay-adaha ay qabanayaan in la tago in markaasi qofka hadduu awoodo kaar uu samaysto business card qasab maahan inuu company ama hay-adu u shaqeeyo uu ku qorto laakiin magaciisa saddexan waxa uu yaqaano ama uu soo bartay ama takhasuskiisa uu yahay kaarkiisa intuu ka tago meelahaas forumska oo kaleeto inuu tago dadkii u qaybiyay markaas kaarkiisa ninkaasaan ahay ama gabadhaasaan ahay waxaasaan aqaanaa haddii aad wax information aad ku haysid oo kaleeto ila soo xiriir marka networkingka sidii loo samayn lahaa strategy ahaan community markaas ayadana inaan ka caawino hadduu ilaahay yiraahdo midda kale barnaamijkan maanta hadda la isugu yimi aad iyo aad baan maaragtay ula socday muddo badan buu soo socday maanta waxa weeye maalintii midhaha la guraayay ilaahay waxaan ka rajaynayaa inaynu noqonno dadkii ka faa'iideysta dadku haddaanu iman oo ka faa'iideysan dee waxa la yidhi faraska waa la soo kaxeeyaa markuu biyo rabo laakiin biyaha ma cabsiin kartid adigu biyaha u keen borogramkii haddii la soo dhisay oo la soo sameeyey ummadda markaa laga rabaa inay timaado ka faa'iideysato waa soo dhaweynaynaa ilaahay idankii wuxuu noqonayaa mid guulaysta waana loo baahnaa waqti loo baahnaa buuba yimi waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu noqdo mid successful oo socda oo continuous ah oo weligii jira baanu ilaahay ka rajaynaynaa